xisbiga cadaaladda daryeelka iyo maalintiisa lixaad soo bandhigay cudud taageero uu ku leeyahay degmada Garadhiyo taageero tiro badan oo ka tirsan xisbigan socod uu ku soo maray qaar ka mid ah wadooyinka halbowlaha degmada Garadhiyo ku dhawaaqay ereeyay ku dhagiya ku soo dhaweeyay xisbiga markaan ruuxay calanka astaanta ee xisbigaas iyagoo soo baxan ay taageerayaasha kala soo qayb galeen mas'uuliyiinta sare oo ka mid ah xisbigaas iyo mas'uuliyiinta heer degmo iyo guntiga gabagabadiina taageerayaasha ka soo jeeda xisbiga Wicid ay isku soo bariisteen xafiiska ku leeyahay xisbiga Wicid degmada Garadhiyo ka soo qodbada ku ugu soo jeediyeen mas'uuliyiinta heer degmo ee xisbigaas iyo mas'uuliyiinta sare ka soo qayb gashay munaasabadan ugu horeyntii waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Wicid Cabdi Caawad Barre wuxuu yiri sida shalay oo ugu dambeysay labadan xisbi ee kale xoogaa qaran degmadeena ayaa ku dhex maray inagu ku milmimayno mana dhex gelayno iyagaynu dhex u nahay oo kala celinayna oo kala saarayna oo u garnaqayna taasuna maaha midaynu garada keliya aynu ka samaynayno ee weligeemba Somalilandba ilaa gudoomiyaheena ilaa xisbigeena waa u dhexdhexaad isaga ayaa u garnaqa sidoo waxa ka hadlay injineer Cabdifataax Mire Farax Waayeel iyo garab haween iyo dhalinyaro oo dhammaantoodba ay sheegeen amada xisbiga Wicid leedahay taageerayaasha waxaan rajaynaynaa insha Allah sida xisbiga loogu bilaabay ololaha xisbiga qaranka axsaabta qaranka inuu noqdo xisbiga koobaad ee ku guuleysta 13 bisha 2017 kursiga madaxtooyada insha Allah inagu soo biiray maanta bishii tahay bishii shantii bishii 12 2017 وعلى حزب الجنودي عدالة حلو وينسيو تاجرش قرب لما كنا تجربية حزب جنة ما أنت الله قبل أبو وعنا كملنا حزب الجنودي يا عدالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن السيرة وبين تقرأ جمهورية السودان